السلام عليكم ورحمة الله كلانتي wanaagsan saaxiibayaal mar kale meel kasta aad joogtaan runtii markaan halkan imaado waxaan iska jeclahay inaan waxaan idin la wadaago walow aan bariyahan aan ka aad uga gaabiyay group yar oo WhatsApp ka ah oo dhalinyarada qoyska ay ku sheekaystaan waxaan lagu soo wadaagay book runtii aad qaali ah oo waa hore aan laba jeer akhriyay jeclaan lahaana qof kasta oo runtii jecel wax akhrista inuu wax korsado inuu boogaas raadiyo akhristo booga waxa la yiraahdaa himiladaada hano maxamed siibad baa runtii qoray marka booga ma ogtahay wax kasta aad aragto noloshaada waxba kugu xirayaan waxbaad aragtay waxbaad maqashay wixii waxbay kugu xirayaan marka booga wuxuu igu xiray runtii sheeko ku qoran oo boogu uu qoraagu kaga hadlayo wiil yar oo dhalay marka sheekadu waxay leedahay maskaxdaada ha ogolaanin wax walba inay galaan isan u ballaqnaanin wax walba waad aragto maqasho lagaaga sheekay daawatay yaani qashinkas maskaxdaada ay galin sheekada qaabku uga sheekayna waa qaab positive runtii laakiin anigu dhinac kale ka arkaya wuxuu marka qoraagu ka hadlayaa wiil yar oo dhalay oo iskuul geen jiray oo laba bas saddex bas uu kala bedel jiray maalin maxkamad markuu baskii meeshii uu rabay macnaha wiilkii yara waay meeshii lagu dagi lahaa wiilkuu yara waay uu yaabay hal mar buu xarkay wiilkii sidii qof macnaha soo booday oo kale intuu soo dhab hal mar ku yiri moogta ku dhaga aabiis maxaa ku dhacay xagee aaday wuxuu yiri indhaha isku hayo ma seexato yiri may maxaa dhacay marka wuxuu yiri kartoon aan daawanay يا هوير أبو كرتون عند داوني سيء داوني سوير هوير إنها اسكو قبطو كدبنا إنها مركز اسكو قبطو كرتونا هذا كوري عن داود أسبوع هري وحي عن داود ودن بنكو عشنا يوير مد عادي يوير قراجي مركز ويا هوي موت هوير أو تمينس ويلكم إيش وحكي داونا معها عندها يعني waxa uu daawaday waxay galeen maskaxda dabcan ilbayruuy waxa dareemaysaa marka maanta oo baraha bulshada wax kasto nooc lagu wadaago dadka inay runtii ay u badan yihiin waxa anaga bulshadeena dadkeena ay wadaan wax iska qashin isaga badan oo runtii aan bulshadeena macna badan u lahayn wada arkaysin la wadaagay qof kale laga sheekeynayo la wadwado la boonbooninayo xataa maalidooda waxa dhacday in asmaan ka qayb galeen dena wadaadkii baa wuxuu ka hadlay muuqaal bariyahan la wadwaday laba gabdhood oo viral ahaayo buu ka sheekay moogta marka waxa dareemaysaa culimadii xataa dadkii la hayd waxaan inay ka gudbaan oo dadka waxyaalo kale u soo gudbiyaan inay ka hadlayaan dabcan way arkeen soo ma cid walba aragta marka meesha waxa ka daawatid ba arkaysa marka waxa uga gon leeyahay sheekada dabcan waa soo koobay intii ugu muhiimsanayd baan ka soo qaatay waxaa galnay marka maskaxdeena wax kastaynu aragno inuu maqalno noloo soo gudbiyo nologa sheekeeyo inaynu maskaxdeena u ballaqnaato lama rabo maskaxdeena waa inay macnaha waxa maankeena galaya waa inaan filter gareynaa waa inaan kala garanaa maxaa sax ah maxaa xun waa inaan macnaha intii wanaagsan ee runtii ee nafsadaada iyo dadka yaani faa'iido kuugu jirto inaad ka qaadato nuxurka inaad ka qaadato waxyaalaha la yaab kale waxa weeysan dadka qaar aysan ogeyn waxa aad aragtay marka aad ka sheekayso maskaxdaada ay sii galayaan wax marka ka sheekayso maskaxdaada ku sii duubtay oo waxa la yiraahdaa buugta meerkano buugta la akhriyo ama quraanka baday in ehlo quraan baynu nahay dad wax sida wax ku fahmeynaa qofka markuu quraanka xifdinayo markuu quraanka akhriyo qofku waa inuu quraanka ka baxaa soo arki maysid waa meesha laga keenay marka buug aad akhrisid si buuga yaanihi aad wax ka faa'iideystay maskaxdaada ee u qabato ka sheekay buugii qof la wadaag uga sheekay waxyaalihii aad ka fahanto kala ama qor soo markiis marka more aad wixii aad qortid ama aad ka sheekaysid maskaxdaada wixii bay sii qabanaysaa marka sidaas la mid ah waxyaalaha aynu aragno daawano ee aan u wanaagsaneyn caafimaadkeena u wanaagsaneyn maskaxdeena u wanaagsaneyn mustaqbalkeena bay'ad ahaan ka dhaqan ahaan u wanaagsaneyn markaad aragto waxa sax ah oo sida ugu wanaagsan ay tahay inaad ka gudubtid oo aadan inooga sheekeynin ana la wadaagay laakiin hadda waxaan arkaynaa anaga dhamaanteen
qofkii wixii uu ka sheekeenayaa wixii uu qofku u gudbinayaa uu la sheergareynayaa uu tusayaa ma ogin markii wixii maskaxdeena ay sii qabanayso marka waxa uga gol leeyahay runtii muuqaalkan waxa faraha badan ee qashinka ee ka dhex socda baraha bulshada iyo bulshadeen macnaha meel kasta ku nooshahay ku aragtay bulshada dhexdeeda inaan maskaxdaada u ogolaanin oo aysan u balaqnaanin aysan wixii aysan qabanan oo keenin wixii wax xun weeye ka gudub wixii wax wanaagsan weeye qabo si aad uga qabanaysaa la wadaag dadka ka sheekay kuwaas mudan in laga sheekay bificlan waxa arkaynaa in YouTube-kaaga fur YouTube-kaaga markaa furtid kadibna 15 muuqaal ee ugu horeeya arag maxaysa quraanba podcast ya wax faa'iido adiga ku lehba waxaan faa'iido ku lahayn oo runtii waqti ka luminayo naftu way isaga baahan tahay entertainment-iga waxyaalaha qaar inaad ku yarmaa weelis laakiin wixii qabatin tidma waa inaad u badan tahay dhinaca wanaagsan markaan ku leeyahay waa inaad u badan tahay dhinaca wanaagsan kama wado maanta ku dhex wado waxyaalaha qaar kama wado laakiin dee naf iyo shaytaan baa kugu taxalluqa intaad is ilaalin karto inaad is ilaaliso dhinaca wanaagsan oo badnaatid waxa dadka la wadaagaysiina ay noqdaan wax wanaagsan marka fariintani intaas ay ku kooban tahay maskaxdeena ay u balaqnaanin wax walba maskaxdeena aysan ogolaanin by the way hadda AI baa jiro moogta oo wax walba oo runtii adiga baa lagu sameeyaa lagu create gareenaya codkaaga la sameeyaa oo wax walba laga sameyn karaa marka waa inaad wax walba aad aanan su'aal aad gelisid wax walba inaad ka shakin kartaa dhigi kartaa how sidee ku dhacdo waxan sidee ku timaad marka haddaad wax kasta aad iska aqbasho iska ogolaatid iska aamintid maskaxdaada dee runtii qashin baad ku guraysaa taa waxaa weliba la macno ay tahay inaadan lahayn yani dad inaadan maskaxdaada ay tahay calaamad su'aal aysan saari karaynin wax kastoo ay aragto aad baad i salaamaya assalaamu calaykum